waxaan rabaa markii guriga soo gasho albaabka soo gasho kama yara wixii ku soo maray dhowrkii habeenoo ila meeraysada in ilowdaan rabaa idinkuna hadda xaaladeeda waxa weeye la socdo bal hadda meeshay wax ii marayaan idinkaan rabaa inaad la socotaan dhowrkii maalmood oo aan maqnaa ila meeraysada hadda utfilni baan aaday wax la yiraahdo halkan waxa weeye koorso waxbarashaan aaday ma fahmaysaa iyaduna waxa weeye jeegada dhigatay waxay moodo ila meeraysay inay jireen ma fahmi wax ila meeraysan lahaa ma jiraan waa ku maqnaa ma fahantay caawana waxaan rabaa iyadoo adduunkiyo kala asaawidan oo alaab ma fahmaysaa inay timaadaan rabaa marka ila socdo dee ila socdo saas ila socdo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار شرفتها طلع ماشان كسعود طلب هلو السلام عليكم ساتها يا باي حالتك والله وكوفي عنا هاي الحمد لله حالته وبغلبه وكولي ولا لي واحد ربا أرين يرقنا إلى فلوس ما فهم هذه هو أبتها إنا مقناة أو حالة حافظة كمقناة مقرد هذه واحد ربا ولا لي هنا بارين صبريس خصوصية مقرد حالة أيسن في لين ما waxaa rabaa inaan ku sameeyo marka haddii ilaahay idmo ma ii samayn kartaa hal codsi aan wataa ma ii samayn kartaa inaa xaafadda ka kaxaysid yaa waxaan rabaa guriga inaan diyaariyo حاوكين هذا يسميها اوكي كما سيفي عمّا ما قصة على غياب انا مقناتان انا سيفي عم بهالكين كلا انت وحيا واختيار adiga ilaa 4 saac amal iga maqnaada ma garad اوكي aad baa u mahadsantahay walaal aad baa u mahadsantahay boqolkiiba boqol inagu de ways xaal ognahay waxaan rabaa insha Allah inaan iyada ka yaabiyaan rabaa ma fahamtay hay yeesa ka dareemi waan ku bariyay yeesa ka dareemi هي خير مسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار شرفتني وحوي بارين هي ولا شيء حنا وصوص خلان ومشي له وانا دياري دواك ديبانو لبستي واسسوت تستوسي واي عرفتان والله لو صوص على الرومانتية شحالك أدوك حوي مركي سوق شو دي عاون عروس بقى عندي حالد وحوي ضوابك wax kala ka soo saarnina way idin qaanaaniga ku komentiyada qori jiray ma garanaysaa waxa way xaaladu waa okay way islaantayda saan u qanacsan lahaa hadiyadeyda waxayga waa arki doontaa bal guriga horta aan idin halkaas aan ka bilaabaya hayno socoto sidii hooyo u badkeed uga dhowrtaa absami u ilaalisaan macaan kugu heestayaa wayloof kugu heestayaa sidii hooyo u badkeed uga dhowrto absami u ilaalisaan macaan kugu heestayaa wayloof kugu heestayaa dilayso dinabadaya talamalante dalurtayda jeclaynta astakayaama
asxaabtayda way soo socotaa hiiskay soo socota وقروها قربت منه يا وعم غني محاسودون ايه ايه يا اسكاري يا اسكاري يا اسكاري يا اسكاري يا كمان كاسي ده وكوي حناك سنة يعني حناقة يوحى والسكرين يجي روح ارتي يجي رمية اوكي اسمك صاصع وكوي وقا فرحة دولي جاي صاصع قلبي جاي قاعدة وشعلها حي صاصع waxaan dhan sameeyay أنا كل سنة وكل دياري وكل ترى maxaa marka imaamadiisa igu sheegaysa حال عي سو كمان مغني فكرني mayde saa waxaa u diyaarisa qurux maasha allah سلو فريسو وقدين هنا waali idin waabay igu tahay be فريسو دي مرحلة قولي لي شو كان وكل دياري عنتدي وحبذا ما وحيد دياري سمع سلو قال فريسو وكو كاسا اوكي وحبذا ما وحيد دياري عادي ما فهمت لكن ما شاء الله لكن ما انت أنا أيقو ديارني ما فهمت ما ما تسمي جنة إلهي أناني أسلوبات أوين كودن تيرتهن عبادي الشرف تات إبيو غارولده إبيو غارولده أسلوبات أوين كودن بيرتهن عبادي الشرف تات إبيو غارولده إبيو غارولده وقي هالبولان وي وين كلها هاي أنا قيا ودنا وهابي سنتهايو وقي هالبولان وي وين كلها هاي أنا قيا ودنا وهابي حاج يا بس قاريبه ولي بالله اسمه قاريبه كو يا كلا بر ما جوجو ما waxaan ku leeyahay fadhiga haray fadhiga markaan tagno hadii ilaahayno hadda korban ku geeyay waa kugu soo wareejiyay I love you meesha ku taalay kadib alaab baa ku dhiman ma horta waxa aniga alaabta lama sii sheegayo horta waxa aniga rabaa horta waxaan aad halkan uga salaamaynaa lamaanaha quruxda badan qiimaha iyo qaayaha agteeda kale ee la ka hamiiliyo ee ku sugan magaalada Hargeysa waa kuwee waa Hanad Caraale Cayuuni iyo Najma Bashiir Abubakar aad baan u salaameynaa waxaan leenahay isku waara jacaylka aanu idinka aragnay boqolkiiba boqol mid ka sii wanaagsan ilaahay hayna walaasheen Najmana ana u si salaama boqolkiiba boqol iyo xaajigeeda waa salaameynaa iyo dhammaan asxaabta wax la mitasho oo dhan oo halkaas joogta oo la ka hamiiliyo halkaa u joogta aad baan u salaameynaa reer Hargeysa kulligoodba waa idin jecelahay qalbiga naga taaliin aad baan idin salaameynaa kaliya maxaa noo haray
jacaylkeena mudan qarinay murugtan cashaqayga mudan qarinay mar walba bafinay anoo ku mashquulsan barliin munadeeda maasha allah heesta ay tirti murtida hadalkeeda misanka weedheeda miir dhaqaaqeeda muuqaalka qurudeeda hoy ankayga weydeede wow midigtaydi bismillah bismillah waxa weeye xabadani waa jag 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 talalalala 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 talalalan maasha allah tabaaraka allah xaajigeeda maanta waxay keenay xadiid aad u qurux badan weligiisna waa ii keeni jiray laakiin inama tusi jirin waa lay marka faahfaahinaya waxaan leeyahay maasha allah famil kasta oo isku faraxsan saas kale ha iskaga farxiyaan waxaan leeyahay gabdhaha iyo wiilasha labadaba hadday xaajiidin inay xanaaqdo iyadan filimay ka farxiyaan yes yes marka adaa iga guddoomisay adaan ku sito aniga awl ima hibeen ha macaan adaa ku hibeen okay aad baa u mahadsan tahay boqolkiiba boqol qalbiga iga taal asxaabta sharafta qiimaha iyo qadarinta mudanow horta barnaamijkii intan ayuu kusoo gabagaboobay laakiin waxaan rabaa inaan wax yar idin sheego waxaan rabnaa inaan bedello dhaqanka ah waxaa jirta maamaha soomaaliyeed oo horay loo yiri oo ah nin iyo naagis qabaa colla maaha nabadna maaha barnaamijkaasoo da'yarta soomaaliyeed qof kasta wiil kasta iyo gabar kasta markay soo hana qaadaan ku noqota wax maaragtay nooc kale ah oo is yiraahdaba malaha waaba noocaas baaba laysaga dhaqmaayo dadku waa noocaas marka waxaan hal leeyahay dadka fikirkaasi inta ka buuxsamay qalbigooda ka buuxsamay ay dhibayso oo markay arkaan lamaana isku faraxsan oo nolosha farxad qaybsanaya oo kaamarada iska duubaya oo ummadda raba inay la wadaagaan farxadooda si kuwa badani ugu daydaan wanaagga ay soo bandhigeen kuwii horay anagoo kale ahaana macnaha naga sii fiicnaana sii fiicnaana ha kuwii horay usii fiicnaana waa runteed sidii kuwii hore usii fiicnaan lahaa usii fiicnaana oo annaga naga sii fiicnaana ay usii fiicnaadaan kuwa maaragtay aaminsan fikirka qaldan waa qoladan ka hadlaya fikirka qaldan ayaan horta waxaan ula jeednaa laakaha medio bro laanta hargeysana iyaduna saas oo kale oo ay sameeyeen walaalkay aan u mahad celinaya iyo walaashay najmo iyo walaalkay hanad iyaguna ay sameeyeen waxaan uga jeednaa oo keliya waxay tahay in aanu la wadaagno farxaddaas faamilada kale oo aan farxadda haysan qaab ay ku dayasho ugu noqoto kuwii haystayna ay ugu noqoto allalehe way jiraan kuwa idin la midihi ama kuwa allale kuwan mid kusoo dhowdhow yihiin annagu malihin waa ugu heersaraynaa waxaanu aaminsannahay weli heerkii la rabay inaanan gaarin laakiin waa si aanu ku qanacsannahay qaabkaan u noolnahay qolada marka aaminsan dadka looma soo bandhigo waxaan aaminsanahay inay qaldan yihiin wixii wanaagsanaa haddaan la soo bandhigin ama qoyska isku faraxsan haddii aysan isa soo bandhigin waxaad banaanada ku aragtaan kuwa kalarka isku dhago oo yidhahda ifur soo maa kuwaas ayaa kuwa noocaasa ayaa banaanada lagu arkaa oo iyagu inta gurigooda wax ku xalin waayey banaanka isula soo baxay kadibna ay dhacdo inay dadku arkaan sheekadiina ay keentay in la yidhaahdo nin iyo naagis qabaacalna maaha nabadna maaha aad iyo aad nabad waa leeyahay sharaf iyo wanaag bay inta badan qoysaska soomaaliyeedna ku nool yihiin inta dhibaatadu ka dhex jirtana waxaan leenahay ilaahay dhibaatada ha ka dhex saaro guul iyo naxariis dunya aakhiraba waa inay rajaynaynaa dhammaantiina waa ina salaamaynaa meel kastay soomaali joogto iyo walaalkay hanad iyo xaajiyadiisa najimo waxaynu leenahay barwaaqo iyo bashbash ku noolaada waana ina salaamaynaa iyo tiimka inala joogaba dhammaantiin waan salaamaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa laakaha medio pro asxaabta ku xiran faamilkayaga weeye dhammaantiin waxaad tihiin faamilkayaga waxaan leenahay
هذه iyo waxaan u mahad celinayaa walaashay macaan oo aan jeclahay xanaan marka asxaabay aniga xaajigayga wax dhibaataan ma dhex eelina walba waa isla hadlaynay waa isla qoslaynay wax dhibana ma jirin xooga heestaasaan ka xanaaqay haddana u jeedaan quruxda iyo sharafta iyo hadiyad qurux badan iyo gurigaygii oo wax kale laga dhigay inay ii keenay waxaan ina leeyahay saa u ogaada aniga xaajigayga waa isla joognaa sheekadiina waa dhamaatay intaas ku soo gabagabowday haydo bye bye